السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وواضح آدي هذا وما تسنتين. مركز محربة إن ندي كله وذاقه. محكمة دينا immigration كقول دروين مامل كترام أي كلاسو قد بونادين. كدي مركي ويل يجبر مسلنا أو أرضي مظاهرات كسمين درتي حل جد دجال كي قزء والسعودها دولتنا أي حرتي إسلام مركانا أي تريوان مسافرين أو جرسوريال أي أمر كبحيان إن المسافرين كرين. iyo ninkii Kilmar Abrego Garcia ahaa oo aan ognahay dhibaatada ka dhalatay markii maamulka Trump uu wadankiisa El Salvador u masaafuriyay oo hadda garsoore amar uu ku bixiyay inaysan mar kale dawladdu aysan dib u xiri karin sidoo kalena maxay tahay fadeexada dul hoganaysa wasiirka amniga gudaha ee wadanka Mareykanka Kristi Noem iyadoo hadda afhayeenkii wasaaradda amniga gudahana ay iscasilayso maxay tahay xiriirka hoose ee kala dhaxeeya ninka ku xigeenka u ah wasiirka amniga gudaha oo hadda soo shaac baxaya xilli waliba hadda wasaaradda amniga gudaha ay ku dhawaad muddo toddobaad ah aysan wax lacag haysanin kadib markii labada xisbi ay ku heshiin waayeen in wasaaraddaasi la maalgeliyo iyo in kala khilaafka dhinaca howlgallada ICE ka dhashay darteed arrimahaas ayaan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay maamulka Trump markii uu xilka la wareegay in uu bilaabay qabqabashada ardadii muslimiinta ahayd ee mudaharaadka ka sameeysay jaamacadaha dagaalkii Gaza markuu bilowday kadib isla markaana dalbanayay jaamacaduhu inay joojiyaan lacagaha ay siiyaan dawladda Yahuudda arrintaasi darteed maamulka Trump marka waxa uu bilaabay ardaydaasi in uu intuu qabqabto isla markaana masaafuriyo dhowr arday ayaa jirtay oo xarigoodu uu soo shaabaxay isla markaana warbaahinadu ay si aad ah u hadal hayeen waxa kamid ah yarkii Maxamuud Qaliil oo hadda la leeyahay Algeria ayaa laga yaabaa in loo masaafuriyo waxa kamid ah ninkan dhalinyarada oo Falastiiniga oo isagana la yiraahdo Muhsin Mahdawi oo 34 jir ah ninkan gobolka Vermont ayaa lagu qabtay bishii Abriil xilli waliba uu u socday interviewgii uu dhalashada Mareykanka uu ku qaadan lahaa ku dhawaad 2 toddobaad markii uu xirnaa ayaana la soo daayay ilaa hadda marka wali maxkamadiisa ayaa socotay arrintaasi sanadkii hore ay ahayd bishii Abriil sanadkii hore 2025 xilliga la xirayo marka hadda garsoore federaal ah ayaa waxa uu yiri wadanka lagama masaafurin karo isagu green card ayuu lahaa markaas waxa uu dalbanayay dhalashadiisa marka maadaama mudaharaadyadii uu ka qayb galo dadka Falastiiniyiinta taageersan oo ahaa sidaas darteed ayaa wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio waxa uu yiri waxa uu qatar ku yahay siyaasadeena arrimaha dibadda hadda garsoorahan marka waxa uu yiri wadanka lagama masaafurin karo sidoo kale waxa jirtay gabar iyaduna dhiganaysa jaamacadda Tufts University oo PhD diyaarinaysa oo wadanka Turkiga u dhalatay isla markaana Ramadaankii hore oo 25kii bishii March laga qabtay magaalada Somerville ee gobolka Massachusetts waliba iyadoo banaanka taagan oo afar u socoto ciidamo dharcada ICE intay u yimaadeen ay xireen gabadhaasi ku dhawaad muddo 6 toddobaad ah ay xirnayd waxaana la soo daayay bishii May 9keedii iyadana hadda garsoore ayaa waxa uu amar ku bixiyay in aanan wadanka laga masaafurin karin maxaa yeelay ma jirto wax cadeyn oo dawladda wasaaradda amniga gudaha ay u hayso oo macquul ah oo dadkan wadanka looga masaafurin karo labadaasi arday Muhsin Mahdawi isaguna jaamacadda Columbia University ayuu horay uga qalin jabiyay marka labadaasi guul darro oo kala duwan ayaa maamulka Trump kala soo gudboonaatay dhinaca maxkamadaha federaalka sidoo kale waxaa jirta Kilmar Abrego Garcia ninkii wadanka El Salvador u dhashay isla markaana maamulka Trump sharciga Alien Enemy Act markii uu isticmaalay dadkii uu masaafuriyay wadanka El Salvador kamid ahaa oo xabsiga sida weyn loo ilaaliyo si cod la geeyay laakiin bishii June ee lixaad dib loogu soo celiyay Mareykanka markii arrintiisa arrin weyn ay noqotay oo xitaa senator Maryland laga soo doortay maadaama Maryland uu deganaa ninkan Kilmar Abrego Garcia inta uu baxay xabsiga ku booqday la soo kulmay dib ayaa loogu soo celiyay Mareykanka dawladuna waa tii ku eedeysan ninkan muqallas ayuu ahaa daroogada iyo dadka iyo caruurta ayuu Mareykanka soo galin jiray intuu xuduudda Mareykanku la wadaago Mexico ka soo wado marka dhowr jeer ayaa dib loo xiray dawladdu waxay ugu hanjabaysay wadan Afrikaana inuu masaafurinayso mar Uganda lagu geenayaa leeri mar Eswatini ayaa lagu geenayaa mar wadankaada El Salvador ayaa dib lagu celinaya marka markastaba waa la xirayay waa la soo daynayay hadda marka waxa ay qareenadiisu ay xaqiijiyeen in garsoore la yiraahdo Paula Shinis oo Maryland caasimadeeda Baltimore fariisata ay amar ku bixisay inaan ninkaasi mar dambe dib loo soo xiri karin dawladdu waxay tiri dacwadaha ay ku haysato waa ay soconayaan laakiin banaanka ayuu joogaya wadankana lagama masaafurin karo dibna looma soo xiri karo arrintaasina waa arrin kale oo maamulka Trump guuldar hadana la soo gudboonatay dhinaca immigrationka Trump xitaa ninkaasi
su'aalo fara badan ayaa laga weydiiyey xitaa wuxuu yidhi M13 ayuu ka tirsanaa gacantiisa ayay ku qoran tahay sawir photoshop oo la sameeyey marka arrimahaasi oo idil ninkaasi arrintiisuna halkaasi ayay maraysaa sidoo kale maamulka Trump guuldarradaasi ayaa kala soo gudboonaatay dhinaca wasiirka amniga gudaha Christine Noem aan imaado fadeexa fara badan ayaa dul hoganaysa waxaan ognahay howlgalkii ay ciidamada ICE ka wadeen gobolka Minnesota ee Metro Search hoggaankiisa waa tii ku guuldareysatay oo markii dambena Trump uu Tom Harman u diray haddana ka bixitaankii ciidamada ICE ee gobolka Minnesota ay socoto laakiin hadda fadeexadahan soo baxaya wargeyska Wall Street Journal ayaa wuxuu qorayaa ninka ku xigeenkeeda oo la yiraahdo Corey Lewandowski in xiriir jacayl uu kala dhaxeeyo Christine Noem wasiirka amniga gudaha waa la qabaa ilmo ayay leedahay ninkan naxaas ayuu leeyahay ilmo ayuu leeyahay marka sidaas darteed waxa la leeyahay xiriir ayaa ka dhaxeeya waxa la ogaaday in diyaarad 737 Max oo 70 milyan oo dollar joogta isla markaana dawladdu ay leedahay in ay labaduba ku safraan qaybta dambena waxay ku leedahay la yiri diyaaraddaasi meel la seexdo sidaas darteed waxa la arkayaa markasta oo diyaaraddu ay hawada ku jirto qaybtaasi gadaale iyagoo galaya teeda kale waxa jirta in mar diyaarad ay saarnaayeen inta cilada ku timid diyaaradaha la kala bedelayay in busta ay lahayd wasiirka amniga gudaha diyaaradii kale ee ay ka guurayeen oo diyaaradda kale ay ku wareegayeen oo bedelanayeen in bustihii looga soo tagay marka pilotkii waday duuliyihii waday oo ah duuliye ka tirsan ciidamada ilaalada badda oo ayaa waxa lagu shaqadii looga joojiyay maxaa bustahaasi diyaaraddaasi uga soo qaadi waysay ay wasiirka amniga gudaha lahayd oo diyaaradan kale aad u soo saari waysay shaqadii ayaa laga ceeriyay laakiin saacada kadib waxaa la yiri diyaarad shacab oo commercial qaado iska aad gurigaadii laakiin saacada kadib markii ay rabeen inay baxaan waxay ogaadeen duuliye kale inaysan haysan isagii ayaa dib loo wacay oo la yiri shaqada ku soo laabay kaalay diyaaradda mar kale wad marka arrintaasina waa ay jirtaa fadeexadaasi ayaa lagu eedeynaya xiriir jacayl inuu kala dhaxeeyo ninkaasi la yiraahdo Corey Lewandowski oo iyadana ku xigeenkeeda waxyaabaha kale soo baxaya waxa ka mid ah in khilaaf uu ka dhaxeeyo wasiirka amniga gudaha Christine Noem iyo ninka Trump uu xil saaray arrimaha masaafurinta iyo xuduudaha Tom Harman waxa la leeyahay Christine Noem mid ka mid ah shaqaalaheeda ayaa waxay u xil saartay inay la socoto inta jeer oo TV-yada uu ka soo muuqanayo ninkan Tom Harman isla markaana waxa ay dalbatay in iyadu TV-ga ay ka soo muuqato in ka badan inta Tom Harman uu ka soo muuqanayo marka waxa lagu tartamayaa TV-yadii iyo sidoo kalena aniga ayaa intaasoo TV ka hadlay iyo isaguna intaasoo TV ayuu ka hadlay khilaafkan muddooyinkii ugu dambeeyay ayuu soo baxayay xitaa markii ay ku guuldareysatay howlgalkii ciidamada ICE ee gobolka Minnesota waa kii Trump halkaasi Tom Harman u diray sidoo kalena waxaa jirta hadda in wasaaradda amniga gudaha lacagtii laga jaray iyadoo sidoo kalena afhayeenkii hadda wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin ay shaqada ay ka tagayso waxaa jirtay horeyna muuqaal kale waan ugu sheegay in sanadkii hore 220 milyan oo kontraktiyo wasaaradda amniga gudaha ay bixinaysay in kontraktiyadaasi la siiyey in afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ninkeeda company uu iska leeyahay waxaana lagu bixinaya xayisiino ay ka soo muuqanaysay wasiirka amniga gudaha wasiirka amniga gudaha waxaa lagu yaqaanaa in xayisiino kala duwan ay samayso mar maadaama wasaaraddeeda hay'ado badan ay hoos yimaadaan mar dharka ciidamada ICE iyadoo ku libisan mar dharka ciidamada xuduudaha mar dharka ciidamada ilaalada xeebaha mar FEMA hay'adda maareynta masiibooyinka marka lacag fara badan ayaa lagu bixinayay kontraktiyada dawladana waa la xayisiyaa waa loo tartamaa laakiin in ay siiyeenba afhayeenka aqalka cad aan afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ninkeeda company oo madax ka ahaa ayaa kontraktiyadii la siiyay hadda marka sidaas darteed waxa la leeyahay afhayeenkii wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin waa is casilaysaa marka hadda maadaama cadaadis fara badan iyo fadeexadan ay ku furan yihiin ma laga yaabaa inay is casisho wasiirka amniga gudaha Trump ayaa la weydiiyey toddobaadkan hadda arrintaasi xiriirka ka dhaxeeya ayna wasiirka amniga gudaha iyo ninkan ku xigeenkeeda ah oo la yiraahdo Corey Lewandowski Trump wuxuu yiri arrintaasi anigu waxba kama ogi hadda sidoo kale waxaa soo baxday in laba askari oo ciidamada ICE oo kuwii qayb ka ahaa howlgalada ka waday gobolka Minnesota waxaan ognahay markii la diray Renee Good 7 January waxaa xigay in la dhaawacay nin kale oo isaguna wadanka Venezuela u dhashay oo 14 bishii February marka labadii askari oo ciidamada ICE waxay yiraahdeen ninkan waana soo weeraray waxa watay badeel iyo sidoo kale xaaqinka ushiisa marka waxa la ogaaday markii dib loo baaray arrintii inay been sheegeen
oo aysan jirin arrintan arrin ay soo dhoodhoobeen ay ahayeen ninkii dacwadihii lagu soo oogay oo la dhaawacay dowladdu hadda waa ay tuurtay labadii askari oo ciidamada ICE maadaama iyagoo la dhaariyay inay run sheegaan ay been sheegeen hadda shaqadii waa laga joojiyey marka labadii dil marka hadda Rene Good iyo waliba Alex Bredina maxaa marka ay been oo sheegeen ciidamada ICE marka arrimahaasna hadda waa ay soo baxayaan hadda maanta waxaa arkay xeeraryaha degmada Xenebin Mari Mariadi oo dowladda dhahayso waa in cadeymaha Alex Bredi dilkiisii aad soo bandhigtaan waxa kale ee soo kordha haddii Alle waa dila soo socodsiin doonaa nabadgelyo